maalintii 14aad ayay maanta ahayd dacwada loo haysto 3 wiil oo Soomaaliya oo kala ah Cabdiraxmaan Daawud Guuleed Cumar iyo Maxamed Faarax dawladda dhinaceeda ama dacwad oogayaasha ayaa soo dhameystiray marqaatiyaashii ay rabeen in ay maxkamadda keenaan waxaana ay su'aalo weydiiyeen 3 sargaal oo ka tirsan hay'adda FBI kuwaasi oo kaalimo kala duwan ku lahaa dabagalkii iyo soo xiristii wiilashan dhalinyarada ah maxkamadda ayaa lagu soo bandhigay muuqaalo muujinaya qaabkii loo soo qabtay baasaboorro Kanadiyaan ah oo been abuur oo ay doonayeen in ay Kanada ku tagaan kuwaasi oo lahaa sawiradooda iyo magacyo kale iyo dukumeentiyo kale oo qoraallo u badnaa kadib ayaa waxa ay ku wareegtay dhinaca qareennada difaacaya wiilashan waxaana ay qareennadu bilaabeen in ay su'aalo weydiiyaan Cabdiraxmaan Daawud iyo Maxamed Faarax ayaa labaduba ka gaabsaday in ay sameeyaan marqaati fur balse Guuleed Cumar ayaa soo fariistay meeshii marqaati furka isagoo ka warbixiyay xaaladda noloshiisa Guuleed waxa uu sheegay inuu ku dhashay xero qaxooti oo ku taala dalka Kenya xilliga ay ka soo qaxayeen Soomaaliya ayuu sheegay in aabihii uu wadada ku dhaawacmay taasi oo ka dhigtay mid markaasi cuuriyaan ah Guuleed waxa uu Xuseen aabihii uu markaasi qabay xanuun dhinaca dhimirka ah taasoo keentay in uu ka tago hooyadii isla markaana aanu aqoonin jaani cirib meel u dhigay waxyaabaha kale ee Guuleed ku jiray hadalkiisa ayaa waxa ka mid ahaa in Guuleed uu ka soo jeedo qoys ka kooban 13 walaalo ah iyo hooyadii taasi oo ah tiro runtii aad u ballaaran Guuleed waxa uu ka sheekeeyay noloshii uu ku soo koray iyo dhibaatooyinkii hooyadii ay soo martay markii walaalkii uu aaday dalka Soomaaliya oo uu ku biiray kooxda Al-Shabaab ilmo ayaa soo dhaaftay Guuleed xubno ka mid ah qoyskiisa gaar ahaan walaalihii oo maxkamadda fadhiya ayaa iyaguna sidoo kale ilmeeyay waxaana la hakiyay maxkamaddii oo dib loo sii anbaqaaday bari ayaa la filayaa mar kale in maxkamadda la isugu yimaado iyadoo maalmaha soo socdana la filayo in markaasi ay soo gabagabowdo dacwadaasi isla markaana ay guddiga juuriga ama xeerbeegtidu ay go'aan ka gaaraan Falastiin Iimaan VOA Minnesota